تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادن دف ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل من. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد waxaynu runtii ku jirnaa maalmo munkaraad fara badan ay ka muuqdaan suuqyadeenna iyo wadooyinkeenna munkaraadkaas oo ay ugu muhiimsan yihiin ama ugu muuqasho badan yihiin heese iyo muusig iyo dumar iyo inamo isla jaasaya hablihii oo guryahoodii ka soo baxay oo waxa weeye cawradoodii muujiyey qodobada noocaasi oo runtii shareecada alle muxaram ku ah ayaan doonayaa inaan ku baraarujiyo dadka muslimiinta ah. ugu horeyn haysto waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay. ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka kariimka wuxuu ku tilmaamay isagoo ka warramaya dadka lunsan ee dariiqii alle garab maray. الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إلهي wuxuu leeyahay dadka waxaa ka mida qaar iibsanaya oo gadanaya warka laqwiga ah si ay dadka ugaga lumiyaan dariiqa alleh. arrinkaas alla tilmaamay. Cabdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu saxaabigii la oran jiray wuxuu ku dhaartay lahwal xadiiska ilaahay sheegaya ee uu ku dhaleeceeyay dadka qaarkood inay sameeyaan oo iibsadaan inuu yahay heesaha. waxa kaloo alla tilmaamay subxaanahu wa ta'ala oo yidhi isagoo shaytaanka la hadlaya iyo ibliiska ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ku ibtileeyey ama ku imtixaamay basharkaasi oo alle subxaanahu wa tacaala u kala sooco ka ibliiska adeecayay iyo ka ilaahay adeecayay. alla wuxuu yidhi wastafzis man istatacta minhum bisawtik ibliisow ku dareerso oo ku kaxayso cidda aad awoodo ee khalqiga ka mida codkaaga ku kaxayso. cabdullaahi ibnu cabbaas radiyallahu tacaala canhu saxaabigaas nabiga calayhi salaatu wasalaam in adeerkii ahaa waxa uu ku fasiray sawdka ibliis inuu yahay heesaha iyo waxa weeyaan ghinaaga inuu yahay ayuu ku fasiray. waxaa kaloo alla tilmaamay isagoo alle subxaanahu wa tacaala ka warramaya kufaartii quraysheed iyo siday axaadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam warkiisa iyo qur-aanka markuu akhriyayo ay ugu ciyaarayeen uguna qoslayeen ayaa la wuxuu yidhi afa min hada alxadiidi tacjabuun watadxakuuna walaa tabkuun wa antum saamiduun. war ma qur-aankan kariimka ah ee nebi maxamed idiin sheegayo ayaad la yaabantihiin ma isagaad ku qoslaysaan oo aadan wax aydan la ilmaynayn idinkoo ah saamiduun. saamiduunta culimmadu waxay ku fasireen heesaha. sumuudku waa ghinaaga. idinkoo iska heesaya ayaad nebi maxamed qur-aankii ula yimidna aad ku ciyaaraysaan. marka taa waxa weeye waa dhaleecayn alle uu dhaleecaynayo heesaha iyo xumaanta ay leeyihiin. rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay inay aakhiru zamanka ay soo bixi doonaan dad xalaashan doona heesaha. dad heesaha xalaashan doona inay soo bixi doonaan. way xalaashan doonaanna waxaa laga garanayaa inay heesuhu xaaraan yihiin. wa ilaa haddaanay sidaa ahayn laguma dhaleeceeyeen oo lama yidhaahdeen waxbay xalaalaysteen haddaanay marka hore aanay muxaram ahayn. culimmada muslimiinta ah
ee lagu kalsoon yahay zaman walba waxay mareen waddadaas ah inay heesuhu xaaraan yihiin. haddii heesaha ay la sii xidhiidhaan oo lagu daro isruxitaan iyo in rag iyo dumar ay wada jaasaan oo kaman loo garaacana xurmadeeda iyo xaaraantinimadeedu way ka sii adag tahay. oo heestu marna iyadoo aan muusig iyo kaman loo tumaynin baa la qaadaa, marna iyadoo kaman iyo muusig iyo wax kale la raacaan. dhammaantood nooc kastaba ha noqotee waa muxaram, sharciga allana kuma bannaana. nusuusta aynu sheegnay ayaana daliil u ah inay xaaraantay. heesta waxaa laga dhexlaa waxyaabo badan oo waxa weeye qofka bini'aadamka iyo mujtamaca dhibaya. waxaa laga dhexlaa qalbigay fasahaadisaa heesuhu, dhegaysadkoodu iyo qaadidoodu waxay fasahaadiyaan qalbiga. sheekhi loo jeeda Dhaxaak ibn Musaaxim wuxuu yidhi alghinaa'u mafsadatu lilqalb maskhadatun lirrabb. heesuhu qalbigana way fasahaadiyaan, ilaahayna way ka cadhaysiiyaan. waxaa ka mid a mafaasidda laga dhaxlayo heesaha iyo dhegaysadkooda qalbigay nifaaq ku abuuraan. culimadu waxay yidhaahdeen alghinaa'u yunbitu nifaaqa fi lqalb. heestu qalbiga waxay dhaxalsiisaa nifaaq iyo munaafiqnimo qofku inuu noqdo. sida biyuhuba ay u soo saaraan dalaga u soo saaraan ayaa heestuna nifaaqa waxa weeyaan ay qalbiga ugu soo saartaa. sheekhii la odhan jiray alimaam axmed raximahullah waxa uu tilmaamay alghinaa'u yunbitu nifaaqa fi lqalb. qiinuhu iyo heestu qalbiga waxay ku beeraan oo ku abuuraan nifaaq. nifaaquna waa in hoostana gaalnimo iyo qurun lagu haysto, daahirka iyo dushana laga muujisto islaamnimo. mafsadada saddexaad waxay u tahay ciidan u noqdaan dadka heesa, shaytaankay ciidan u noqdaan. shayaadiinta iyo xisbigiisa iyo qoladiisa ayay ku biiraan. waxaa ka mid a waxay qofka ay geyaysiiyaan inuu ku dhaco xumaan, fusuuq iyo cisyaan, iyo diinta inuu ka fitnoobo ayuu ku dhacaa. waxaa ka mid a inuu qalbiga ka masaxo jacaylka dikriga alle iyo qur-aanka kariimka ah. waayo qalbiga kuma kulmi karaan hees inuu jeclaado iyo qur-aan inuu jeclaado iyo dikriga ilaahay. alimaam ibnu qayim raximahullah wuxuu leeyahay xubu lkitaabi wa xubu alxaani alghina fii qalbi cabdin laysat yajtamicaani. qur-aan la jeclaado iyo hees la jeclaado addoon qalbigiisa kumaba kulmi karayaan. waxaa laga dhaxlaa oo ka mid a dhibaatadiisa shayaadiintay soo jiidaan. shayaadiinta oo guriga heesaha lagu garaacdaa, malaa'igtuna way ka fogaataa, shayaadiintuna way ku soo hoyataa. waxaa ka mid a mafaasidiisa inuu sabab u noqdo u yeedho zina inuu qofku ku dhaco. waayo heestani ama heesaha iyo kabankani waxaan la tumayo qalbigay raadaynayaan. walihaada kuwa heesaya waxay ku heesaan ama u badan heesahooda jacayl iyo dumar in laga sheekeeyo iyo qof isjeclaaday iyo wixii la midka. taasi marka qalbiga waxay ku abuuraysaa inuu u iisho oo u jeclaado ama uu si yar ugu dhaco xumaan iyo zina iyo walciyaadu billaah fawaaxishta la midka. mafaasida aynu sheegnay iyo in kaloo fara badan waxay ka mid yihiin dhibaatada ay leedahay heesuhu ay leeyihiin. culimmada islaamka waaweyn cid bannaysay oo waxa weeyaan weliba haddii muusig iyo isruux iyo waxyaabaha la midka ay la socdaan cid muslimiinta ka mid oo bannaysay ma garanayo. waxaana odhan karayaa inaanay jirin, bal waayo waxay ka hor imanaysaa thawaabiddii diinta. qodobka labaadee iyadana aan doonaya inaan iftiimiyo waa isdhexgalka hablaha iyo inamadu ama ragga iyo dumarka isdhexgalaan. diinta islaamku waxay u timid inay ilaaliso daruuriyaadka shanta ah, arrimaha asaaska iyo tiirdhexaadka u ah nolosha inay ilaaliso. shantaa waxaa ka mid a nafta in la ilaaliyo. ilaalinta nafta la ilaalinayo ee xurmadeeda la ilaalinaya waxaa loo sharciyeeyey in qofkii qof camdan u dila in la dilo si nafta loo badbaadiyo. waxaa ka mid a arrimaha shanta ah diinta in la ilaaliyo. sidaa daraaddeed baa waxaa loo sharciyeeyey jihaadka loo sharciyeeyey si diinta loogu difaaco. waxaa ka mid a maalka qofka in la ilaaliyo
sidaa daraaddeed baa waxaa la sharciyey kii xoola xada in gacmaha laga gooyo si xooluhu ay u ilaashamaan oo dadku xoolahoodu ay ugu nabadgalaan. waxaa ka mid a caqliga, sidaa daraaddeed baa waxaa la sharciyey in xad laga oogo qofkii khamri caba maadaama khamrigu uu caqliga fasaahadinayo. waxaa ka mid ah shanta cirdiga iyo nasabka in la ilaaliyo oo ah dadku inaan ansaabtooda iyo qabiiladooda isku khaldamin oo qof kastaaba aabihii iyo ciddii dhashay uu garanayo. sidaa daraaddeed baa zinada oo ah inuu qofku ninka iyo raggu ay isugu yimaadaan sifo aan sharci ahayn iyo wax kasta oo waddadaa gayaysiinaya uu sharcigu waxa weye u xarimay si loo ilaaliyo nasabkii iyo cirdigii iyo sharaftii qofku lahaa si loo ilaaliyo. sidaa daraaddeed isdhexgalka dumarka iyo raggu ay isdhexgalaan waxay dhaawac u geysan karaysaa shayga aynu tilmaamnay shareecaduba inay u timid in la ilaaliyo oo ah xifdu annasab wa xifdu alcird, cirdiga iyo sharafta qofka in la ilaaliyo. walihaada baa sharciga asaasiyaadkiisa iyo qawaacidda uu ku taagan yahay waxaa ka mid ah in rag iyo dumar aan la kala sooco oo aanay waxa weeye isdhexgelin. nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari iyo muslim warinaya ee usaamata bnu zayd waxaa nebigu tilmaamay maa taraktu bacdii fitnatan adarra cala alrijaali min annisaa, ragga ugamaan tegin dabaday fitno ragga kaga daran dumarka. waxaa kaloo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiisu abi saciid alkhudri fi saxiixi muslim uu yidhi ittaqu dunya wattaqu nnisaa, ragow iska ilaaliya adduunyada ha ku fitnoobina, dumarkana iska ilaaliyo ha ku fitnoobina. waayo fa ina awala fitnata bani israa'iil kaanat fi nnisaa, waayo fitnadii ugu horeysay ee reer banu israa'iil ku dhacda waxay ahayd dumarka, xagga dumarka laga soo galay. sidaa daraaddeed in rag iyo dumar ay isku dhex mulaaqmaan oo waxyaabahaaynu maanta ku arkayno suuqyadeenna ee hablihii waxa weeye ay daaqadaha ka lushaan, baabuur daaqadaha ka lushaan, ee islamarkaa ay waxa weeye ay raggii gacmo ays haystaan, ee ay waxa weeye wada jaasayaan. kullu haadaa waa munkaraat ilaahay iyo rasuulkiisu ay xarimeen. cuquubooyinka ka dhalanaysaana cuquubo qofka samaynaya ku gaar noqotaana way dhici karaysaa. cuquubo haddii waxaa la joojin waayo oo la qaban waayo dadka oo dhan wada saamaynaysaana way ka dhalan karaysaa. abaaraa ka dhalan karaya, xanuunnaa ka dhalan karaya, dagaallaa ka dhalan karaya, amni xumaa ka dhalanaya, faqri baa ka dhalanaya, waayo ilaahay baa subxaanahu watacaala laga cadhaysiiyey. sidaa daraaddeed afcaasha ay dadka dhallinyarada ay samaynayaan waa munkar, mana bannaana. waxaana waajiba cid kasta oo awood u leh inay gacan ku suuliyaan oo arrimaha ay joojiyaan. waxaa la mida soo bixitaanka dumarku inay guryahooda ka soo baxaan iyadoo aan dani ugu jirin iyaduna waa muxaram. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. gabadhu hadday gurigeeda ka soo baxdo waxa u soo banbaxa shaytaan baa iyada kora oo waxa weeye mafaatinteeda iyo jirkeeda meelaha lagu fitnoobayo muujiya. sida daraaddeed shareecadu waxay qabtaa dumarku inay guryahooda ku nagaadaan waqarna fii buyuutikunna. ilaahay baa xaasaskii iyo afooyinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la garanayo inay ahaayeen dumar dhowrsan ilaahay u dooray nebigiisa calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay wuxuu leeyahay waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa. ku nagaada oo ku sugnaada guryihiinna oo ha ismuujinina sida dumarka jaahiliyiintu ay muujiyaan xilligii jaahiliyadda ee bicsadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka horreysay. sida daraaddeed dumarka asalan sharcigu wuxuu ugu talagalay inay guryahooda ku nagaadaan oo aanay ka soo bixin ilaa daruuro iyo arrin laga maarmi waa ah inay u soo baxaan mooyaane. maantana waaqiceenna waynu aragnaa sida waxa weeye hablihii ay intay gurigooda joogaan iyo intay suuqa joogaan ay badan tahay intay suuqa joogaan. wax dan ah oo suuqa kaga xidhan oo aan fasaad ahaynna aanu jirin. sida daraaddeed waxa waajib ah oo qof kastoo muslima ka waajib ku ah munkarka in la radiyo, munkarka in meel looga soo wada jeesto, in waxa weeye ummadda laga waaniyo. hadday noqoto maalmahan doorashadu ay socoto
iyo hadday noqoto maalmaha kaleba xukun ku gaar ah maalmahan ma aha laakiin maadaama maalmahan waxa suuqa ka muuqda ay yihiin waxaan ilaahay iyo rasuulkiisa raali gelinayn ayaa loo baahan yahay in si gaar looga hadlo wa ilaa waqti walba in munkaraadka oo waliba dumarku ay ugu horeeyaan in guryahoodii lagu celiyo acdaa'ul islaam dadka diinta neceb ee gaalada ee yuhuud iyo nasaara leh waxay ku dadaalayaan dumarka muslimaadka ah inay guryahooda ka soo saaraan si ay u fasahaadiyaan hooyadii si ay u fasahaadiyaan inantii guriga joogtay taana waxaa ka dhalanaya in mujtamaci oo dhan oo wada fasahaado waayo mujtamacu waa gurigana waxa asal u ah hooyo iyo dumarba asal u ah haddii kuwaasi la fasahaadiyo ubadka ka soo baxayaana way fasahaadiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ha lagu dadaalo arrimaha noocaasna ha laga dheeraa waxaynu ognahay doctor ololaha doorashadu intuu socdo dadku waxay soo qaataan astaamaha xisbiyada sida calamada istiikarada iyo wixii la mida dadka qaar waxay sameeyaan in ay marsadaan kalar qaar oo jirkooda ay mariyaan qaarna ay mariyaan rinji walow ay u badan yihiin inay dadku marsadaan inta badan waxaa loo yaqaana kalarka oo u eeg calanka xisbiga ay u ololeynayaan uu leeyahay dadkaasna waxay u badan yihiin dhalinyaro shareecada islaamku arrintaa maxay ka qabtaa arrinkan bismillaah wuxuu ku salaysan yahay waxaan la ismarinayo horta ugu horeyn waynu ka hadalnay isu soo baxa noocaasoo rag iyo dumar ay isku dhex mulaaqmaan inuu muxaram yahay arrinkan dheeraadka ee ay samaynayaan ee ay ismarinayaan labaynu kala qaadaynaa haddii horta uu yahay shaygani shay nafta dhibaya ama jidhka wax gaadhsiinaya waa muxarama ma bannaana ilaahay wuxuu uhi walaa taqtuluu anfusakum nafihiinna ha dilina nafta wixii wax yeelayaa sharcan waa muxaram naftanna inagu ma lihin ama jidhkeennan iyo nafteennan ilaahay baa leh sidaa daraaddeed inooma bannaana wax dhibaya in lagu sameeyo haddii laga soo qaado inaanay dhibayn iyada lafteedu ma bannaano waa muxarama waxay muxaram ku tahay waa idaacatlmaal waayo waxani waa wax la soo iibsanayo waa wax hanti la gelinayo taa lafteedu waxa weeye waa idaacatlmaal wax faa'iido oo laga dhaxlayaa ma jiraan dhinaca kalena iyana waxay ka noqonaysaa muxarama waa tashabuh bilkufaar waa gaaladii oo laysu ekaysiinayo wax dhaqan islaamna ma aha dhaqankeennii dadkeennii ay ku noolaayeenna ma aha waa dhaqan laynoo soo waariday isku soo